Soomaaliya waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirada gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ku-xigeenka saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida dhammaan haweenka iyo dhalinyarada caawa ay ka muuqato quruxda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam bacdigeed caawa waa habeen weyn waa habeen kumanaan Soomaaliyeed ay u dabaaldegayaan sanad guuradii 60aad ee ka soo wareegtay markii la qaatay xurriyadda Soomaaliya runaantii waa habeen weyn kumanaan Soomaaliyeed ayagana inta ay ku jireen halganka ay wax ku noqdeen oo runaantii naf badan loo soo horay halgankan guud ahaanteen waxaan mudanahay caawa inaan mataqaanaa u duceyno halgamayaashii u soo halgamay calankan u dhintay u dhaawacmay inaanu horta ugu horeyn faatixada u marno ilaahay inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo ilaahay u naxariisto jannadii firdawsana ka waraabiyo wadankan Soomaaliya taariikh way ku leeyihiin guul weynna waa u soo hooyeen dhalinyarada maanta joogta waxa laga rabaa ilaahay haduu yiraahdo inay dhalinyaradii waqtiga xurriyadda dhaliyay SYL iyo ururadii kala lahaa in lagu daydo Soomaaliya maanta waxay ku jirtaa marxalad adag 60 sano kadib xurriyaddii inaan maanta sidaan u naalo waa ayaan daro waa inaan ka kacnaa cadawgana haysta waa inaan iska dulqaadnaa waa in la isku tashtaa runaantii Soomaaliyana ay u jahaysataa wadadii horumarka iyo baraaraha caawa waa habeen weyn waa habeenkii fagaaraha qayriyadda magaalada Hargeysa laga taagay calankii Soomaaliya oo markaasi ka taagnaa dhul xora runaantii xus gaar ah ayay naga mudan tahay waxaan rabaa caawa in yar inaan ka taabto wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee hadda socda oo runaantii ku soo aaday 60 guuradii ka soo wareegtay maalintii xurriyadda walaalaheenna reer waqooyi runaantii xurriyadda qaybtii ugu muhiimsaneed bay ka ciyaareen inay mataqaanaa dib u soo celiyaan xurriyaddii waa u dagaalameen calankii bay taageen waa noo keeneen Muqdisho noogu keeneen si shuruud la'aan xaqiiqdii aniga iyo dhalinyaro badan waxaan qabnaa in maanta Somaliland loo tanaasulo wada hadallada lagula jirana mataqaanaa wax badan looga tanaasulo si loo soo jiito oo ay dib ugu midoobaan Soomaaliya ay ula midoobaan walaalaheenna waqti adag bay noo tanaasuleen guusha lagu sheegayana waa inaad laba daran mid doorataa haddaan niraano maalintii 60 la joogay ayagoo shuruud la'aan ay noo yimaadeen oo ay noo keeneen mataqaanaa inaan midowno anigu waxaan qabaa maanta in shuruud la'aan loogu tago lana midoobo Soomaaliya midaysan halka laga helo ayadaasna guul weyn bay Soomaaliya u tahay runaantii guud ahaan galmudug 60 guuradan waxay noogu soo aaday horumar iyo baraaro maanta caawa halkan waxaa ka muuqda qurux aad u badan runaantii dawladda galmudugna way shaqaysay amniga waa ka shaqaysay nidaam soo celinta iyo canshuurahana waa ka shaqaysay haddana insha Allah dekadii hobya aan u furaynaa waxayna u noqonaysaa horumar weyn waqtigii aan haya waxaan khudbadeeda ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ay isku tashato ha u istaagto inay wadankooda xoreyso ha u istaagto in mataqaanaa nabadiidkan wadanka haysta mataqaanaa laga sifeeyo aan ku dayano 13 dhalinyarada ahaa SYL aan ku dayano aad baa u mahadsantiin